Waxaan ka hadlaynaa muuqaalo la yaab leh oo aadan rumaysan lahayn haddaysan kaamirooyinka duubi lahayn. Eegan wuxuu u maleynayay inuu albaabka furan yahay balse wuxuu ahaa albaabka mid dhalo ah. Haweeneydan waxay u soo baxday banaanka si ay u qaadato hawo, laakiin ma ogeenin inuu meesha joogo haramcadkan. Ninkan wuxuu go'aansaday inuu jajabiyo dhalooyinka supermarket-ka dhexdiisa. Eegan wuxuu jecel yahay inuu dadka dharka ka siibo. Ninkan ma haysanin wado uu uga baxsado booliiska garoonka diyaaradaha ilaa uu sidan sameeyo mooyee. Waxaa iska cad inay tahay ninkan markii ugu horeysay oo uu soo galo garoonka diyaaradaha. Bisadaha wadooyinka yaab ayay leeyihiin, waxay ka cabsadaan qaarkood jiirka. Kuwa xaafadahana geesinimo ku jirta awgeed bini'aadamka ayay soo weeraraan. Dambiilahan ayaa uga baxsaday booliiska ilbiriqsi gudahood. Shaqaalahan waxay ahayd in si fiican loo baro wadista gaariga. Doonfaarkani wuxuu sababay cabsi badan markii uu soo galay maqaaxida iskuulka. Darwalkan wuxuu xakameyn waayay gaarigiisa, laakiin nasiib wanaag qofna wax kuma noqon. Ninkan wuxuu ka naxay shabeelka markii uu ku arkay gaariga, isla markiiba wuu ka cararay. Waxay rabtay in ay aado dhanka gaariga, laakiin waxa ay aragtay dub ama buuti oo shirka gaariga fadhiyo. Markii ay isku dayday in ay ku xirto gaariga dhexdiisa, culeyskii ayaa ka tambatay, way iska soo carartay. Ninkan jeebkiisa ayaa ku qarxay moobilkiisa, taasoo ku qasabtay isla markiiba inuu dharka iska saaro. Ma habboona in hubka looga tago dadka bilowga ah. Gabadhan ma aysan rabin in ay bixiso lacagta gudaha lagu galayo, laakiin waxay go'aansatay in ay ka cabsiso waardiyaha. Ugu dambeyn, wiilkan ayaa isku dayay inuu fuulo albaabka korkiisa, kaas oo si toos u furmay markii uu gaariga soo dhaqaaqay.